بسم الله الرحمن الرحيم waxaa ku soo dhaweynayaa macadka Hodman koorsadani computer application koorsadan computer application waxay ka koobnaan doontaa ilaa 5 section qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa basic computer setting basic computer setting waxaa ku baran doonaa ilaa 8 qaybood oo qayb walba ay yeelan doonto video gooni ah videogan waxaa ku soo koobi doonaa inaan introduction ka bixino computer videoyaasha kale waxay noqon doonaan connect to Wi-Fi, set change date, setting up on taskbar, remove software, basic hardware, backup files, creating folder, deleting and restoring. Introduction to computer. Computer taariifta ugu muhiimsan uguna fudud waxa weeyaan inay tahay inuu yahay is an electronic device that executes the instructions in a program. Inuu yahay qalab ku shaqeynayo koronto kaasoo ka shaqeysiinayaan amaro hore program ahaan loo siiyay loogu programmi waxaa jiro different kinds noocyo kala duwan ee computers kuwaasoo leh different purpose ujeedooyin kala duwan kaliya waxayna ku kala duwan yihiin size-ka xagga ballaca expense-ga xagga qarashka iyo ability-ga xagga awoodda computer walba leeyahay computerada kale complete computer dhameystiran wuxuu ka koobnaan karaa ilaa 4 qaybood qaybta koowaad waa software in laga helaa computerkan hardware iyo userka isticmaali lahaa iyo datadii lagu isticmaali lahaa waxaan ku hormareynaa the software software waxaa lagu qeexaa inay tahay set of electronic program instructions majmuuco koox amaro oo hore loogu programmiyey si u process gareeyaan data kadibna u soo saaraan output software-ka waxaa loo qaybiyaa ilaa 2 qaybood oo waaweyn system software iyo application software system software waxaa la yiraahdaa waa operating system tusaale ahaan waxaa kamid ah hore loo isticmaali jiray disk operating system hadda waxaa la isticmaalaa Windows sida 7 8 10 another operating systems jira waxaa kamid ah macOS Ubuntu and so on iyo wixii lamid ah operating system kan loo yaqaano system software it means laantiis ma daarmi karo computerka waa computerkii waxa uu ku shaqeyn lahaa hardware-kii waxa uu ku shaqeyn lahaa way type-ka labaad oo loo yaqaano application software waxaa loola jeedaa asigana waa applicationska oo u baahnaan karo qofka marka computerka tago applicationskan waxay ku xiran tahay baahida qofka isticmaalaya computerka waxaa kamid noqon karo applicationskaas Microsoft Office oo ah sectionska kale aan baran doono haddii aan lahayd MS Word haddii aan lahayd PowerPoint Excel iyo Access Photoshop also is application qofkii u baahan inuu wax qurxiyo yaa u baahnaanayo inuu computerkiisa ku soo shubo laakiin qasab kuma ahan computerka Twitter oo kale social media all these applications waxaa loo yaqaan application software waxayna ku xiran tahay baahida qofka isticmaalaya computerka laakiin system software la'aantiis ma daarmi karo computerka waa inuu helaa operating system computerka si uu daarmo the hardware qaybta hardware-ka waa type-ka labaad oo leeyahay computer system dhameystiran hardware waxaa loola jeedaa haddii aan soo koobno waa qaybta la taaban karo taasoo aana arki kartid aana taaban kartid qaybta la taaban karo physical component taasoo la taaban karo lana arki karo waxaa kamid ah RAM-kii memory-gii waxaa kamid ah mouse-kii la isticmaali lahaa wax lagu hagaayay waxaa kamid ah keyboard-kii wax laga qorayay oo datada laga soo gelinahay halkan waxaan gelinaa Microsoft Windows operating system iyo tusaale u yahay Windows operating system waxaa loola jeedaa haddii aan soo koobno waxa weeyaan turjumaanka u dhaxeeya qofka userka iyo computerka qofka isku kala turjumayo programmerskaas amaradaas hore loo siiyay waxa loo yaqaanaa operating system operating system tusaale kamid ah waxa loo yaqaanaa Windows Windows-gan waa application that runs all of your program is your computer's operating system waa operating system computerka it means waa translator-ka computerkaada oo qofka userka isticmaalaya computerka u dhaxeeyo waxa loo yaqaanaa iyo computerka Windows 10 waa type kamid ah Windows-ka Windows 7 soo maray Windows 8 Windows 10 ayuu hadda maraya storage files and items
called folder on different drivers. So files items wuxuu ku install gareeyaa file kuwaas oo loo yaqaano folder on different drivers oo nooc meelo kala duwan iyo ku store gareeyaa waxaan noogu xiga waxa loo yaqaano desktop. So markii ugu horeyso oo computerkaada soo daartid areada ama positionka ugu horeeyo oo arki doontid ayaa waxa loo yaqaanaa desktop. So desktop waxaa kaloo la dhihi karaa waa your work area, waa qaybta aad ku shaqeynaysid oo mar walba wax ku hagaysid ayaa waxa loo yaqaanaa desktop. The mouse is a pointing device. waa qalab tilmaame kaasoo controlayo ilaalinayo dhaqdhaqaaqa cursor-ka falaarta or a pointer on a display screen, ama waa pointerka tilmaamaha kasoo muuqanayo shaashada. kan wax lagu tilmaamo kasoo muuqanayo shaashada kaas waxaa loo yaqaanaa mouse oo la dhihi karaa. So explanation of the mouse function. So shaqooyin badan iyo qabtaa mouse-ka. waxaa ka mid ah click, taasoo micnaheedu tahay in la riixo lana sii daayo qaybta bidix ee mouse-ka markii la dul saaro shayga. It means shaygaas click ugu darnaana. Double click waxaa loola jeedaa in si dhaqsi ah loo riixo laba mar lana sii daayo qaybta bidix ee mouse-ka shayga korkiisa. Right click waxaa loola jeedaa in la riixo lana sii daayo qaybta midig ee mouse-ka. Drag and drop waxaa loola jeedaa in shay laga soo dhaqaajiyo position la geeyo position kale. So si loo sameeyo waxay noqonaysaa in la soo isticmaalo click, la riixo kadib la soo jiido qofkii positionka oo rabo markuu yimaado uu sii daayo. waxaa loo yaqaanaa drag and drop. So point waa type kamid ama function kamid ah mouse-ka, means move the mouse pointer. wuxuu micnaheedu waxay tahay in la dhaqaajiyo mouse pointerka ilaa shayga aad rabtid, objectiga aad rabtid inaad choice garaysid aad dul tagtid. kaas waxaa loo yaqaanaa point. markii shaygaas aad dooranaysid waxaa isticmaalaysaa soo aragnay functionka loo yaqaano click ama double click ama right click ama drag and drop. So marka hore inaad point garaysid oo shayga aad rabtid aad ka dooratid kuwa kale waxaa loo yaqaanaa point. halkaas ayay nooga egtahay course-dan introduction to computer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.